السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلا كل وعنا وناكسن مالو بدكو سكتين كنا سودو هذا برنامج كحولك ورركا warqaha ayaad barnaamijka ka daawataan habeen walba oo 24 bisha saddexaad ee Maaj sanada 2019 qodobada daawad yeelan caawa barnaamijkeedii ugu hayana waxa kamid ah shirkadda SKA oo ku wareejisay dowladda federaalka ee Soomaaliya xogta macdanta ku jirta dalka haddaba intee in la eego macdan ayaa Soomaaliya ku jirta warbixin ayaan idiga soo gudbin doonaa qodobadan kale ee daawad dootaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo fariin adag u diray markale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muxuu ka yiri in ay la midoobaan Soomaaliya heshiisyada ay Imaaraadka Carabta kula jiraan ee dekada Berbera iyo arrimo kale ayaynu soo qaadan doonaa qodobada kale ee daawad dootaan waxa ku jiri doona ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliya oo ayagana sheegay in ka soo baxayaan jiida hore ay kaga sugan yihiin qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose ciidamadan waxay fariin adag u direen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre haddaba maxay tahay fariinta barnaamijka inuu ku soo qaadan doona siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamana waxa uu la yaabay go'aankii ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka qaadatay qaraarkii Yahuudda lagu cambaareynayay si gaar ah ayuu arrinta ugu eedeeyay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo barnaamijka inuu ku soo qaadan doona waxaad kaloo daawadayaal aan idiin soo gudbin doonaa riwaayadii Kalamaan oo aad qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku daawataan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka xulka wararka Soomaaliya وهاجاك داود فضلنا هذا كو عصبتاي شبكه wararka ee warqaha tube subscribe dheh isla mar ahaantaana taabo gambalelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee wararkeena hela qaybta hoose ee commentiyada daawada way ku furtahay si aad fikradaada ugu yeelato wararkaan idin soo gudbino aynu ku bilaabano daawadayaal barnaamijka waayadii la soo dhaafay waxa si weyn dalka uga taagnaa ciidamo sameeya gadood kadib markii ay sheegeen in aysan wax mushaar ka helin dawladda hadalkaas amaba cabashada ciidamada waxay timid kadib markii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ku dhawaaqay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dhammaan shaqaalaha guud ee dawladdu ay mushaarkooda si ballaa u helaan oo ay bil walba qaataan haddaba ciidamada militariga Soomaaliya ee difaac uga jira degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku biiray ciidamada gadoosan ee ka cabanaya mushaar la'aanta iyo raashin la'aanta ciidamadan oo ah guutada lixaad ee ururka koobaad ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in muddo 4 bilood aan la siin mushaar iyo raashin sidoo kale waxay sheegeen in raashin la'aan aysan difaac ku jiri karin waxayna u direen dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre fariin adag oo ay markaa xuquuqdooda ku dalbanayaan saraakiisha u hadlay ciidamadan Barawe ku sugan ayaa madaxda qaranka u qabtay 3 maalmood inay uga soo jawaabaan cabashadooda haddii kale ay dib uga soo laaban doonaan guryahooda kana bixi doonaan difaaca degmada Barawe 5 sano iyo 5 bilood ayaan joognaa degmada Barawe waxa naga maqan waxa kamid ah xuquuqda naga maqan raashin lacag intaas waa naga maqan yihiin 5 sano oo joognay waana soo mareen waxyaalo badan oo silciyaala waana soo mareen oo wax naga maqan ay ku jiro lacag ay naga maqan 9 bilood ay lacag naga maqnaaday ayaan joognay waxa aan loo sabri karin oo maqnaashada haday maqan yihiin meel kasta ay joogaan aad ku doodi karto waxa kamid ah oo raashinka la cunayo oo daruuriga ah raashinkaas wuxuu naga maqan yahay 4 bilood 4taas bilood oo naga maqan yahay intaas waxaan ku waa silcaasan isaga noolayn 4 bilood xuquuq mishaar nooma raashin nooma nag naftay mishaar kuma dhimal laakiin olol faaruq adna baahan hamiiki waa ki buul soo jiifada salaaso bil soo jalay garanki buul nixenji wine maqaayada deenku wine 4 bilood xuquuq nooma maqanta baas walba ma garan laakiin raashiki uu la nikriijido difaacadu kor mooy maanya ku ahayn meel kale maray allahayn intan ciidan 2014 bish 8 Oktoobar Barawe afartiyo ahayd liiti beled soo jal 5 sano 4 bilood Barawe wasiir isla madaxweyne hal mar niikoy hal mar madaxweyne kooy jaakin Barawe qabsajad ilaa shirtur wasiir ku xiyeen gaashaanlig dubay niikoy walaa nisiimani ila baas latan kamani amarkan guri nagadaay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa reer Barawe markaan ama ciidanka aan dib noo gooniyahay oo dheer jira macna 5 sano oo aan Barawe joogno waxaan u maleynayaa 1 sano oo aan bari faysanbuna 4 sano oo kale bari wax nooga yimaada oo ama gaariya ama saada ama wada ma aanan haysan macna waxaan galeynaa bad bari ismaana dhaqaalin
meeshaan hadda aan taaganahay oo xeebka oo aan taaganahay 45 imaan ku tabaynaa oo dhiigayniya oo garafkayniya oo dhacaankayniya dhaawacoodii cid hadda wax u qabatay oo daawada mar qaar aan dhoori ku waayay qaar xibno hore ku jaban yihiin waa ayaan dawlad aan saakay macnaha waxaan isku qancinay dawladayna iyo tabarteera iyo taalkeena intuu leeyahay macnaha qof aan saaka uga dacwooyin oo gooni ma aysan jirin afar walxaatoon oo dheer oo saakay aan isla ciidanka waa uga duwantay jirta waa badan afar sano oo nabadii aan isaqanin waxaan nasiib xumo ah oo intaas dheeriya ayadoo awal anaga mushaarkeena $100 ahay lama arag askari ka tirsan xoogga dalka oo wali ka cabanaya $100 iguma fulna ma aysan dhicin kama dhicin xoogga dalka $100 saaka dood ku jira oo laba askari oo midna yahay barimo waardiyo midna yahay sugunta waardiyo inna waayo nina oo hal waxay yireen waxa furmaha ku sugan waa siinay waana askari dawlo wixii kalena waa malaamilay waxaan rabaa inay halkaas ka dheehdaan wixii ku qoran meeshaas oo anugu ahay oo ku cadahay oo labadooro Soomaaliya dhaxdeera ku maqan anugu aan qaatay shahaadada waxa leeyahay waa malaamilay uma diiwaan gashana ninkan waxba qaadan waxaan ka codsanayaa in ay arintaas dib u fiiriyaan lacagtaas meesha ay martay iyo cidda ay siiyeen inay isweydiiyaan waxaan u sheegayaa muddo 48 saacadood haddii aynan ka soo jawaabin baahidan ciidamada haysa iyo duruufta 5 sano baraa ayaan wax ka qabtay iyo dhowr bilood 4 bilood waa xuquuq la'aan daawo ma leh diyaarad ma leh markab ma leh intaas waa ku sabarsanaan qalajeen farmashaasha ka deynsanay marka waxaan rabaa annagu intaasaan u soo dhabar adeegnay gabar ma kufsan telefoon ma dhicin lacag qof kama baaran masaariif hooyar cid wax naga tabayso baraa u joogto mid nimanka midida qarafan halkaas la roga hadii aan ambareeso tagno 150 qofood ay gowracay kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah ciidamada militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan jiida hore ee degmada Baraawe haddaba arrimaha oo dhan waxay ku soo aadayeen ayadoo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa xooga dalka oo ku sugnaa gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka soo baxeen aagagoodii hore ee difaaca xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in ay diyaarinayso qorshe ay ku doonayso in ay ku qaado weerar ay kooxaha al-shabaab kula dagaalamayso dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaana ilaa hadda war ka soo saareen hadalka ka soo baxay ciidamada Baraawe ku sugan ayada oo ra'iisul wasaaraha dalka iyo taliyaha guud ee ciidamada xooga dalka ay horey u sheegeen inay guud ahaanba ciidamada xooga dalka ay helaan mushaaraadkooda iminkana daawadayaal dawladda Soomaaliya ayaa la wareegtay xogta macdanta dalka ku jirta oo muhiimad gaar ah u leh kheyraadka dabiiciga ee dalka waxaana baarista xogtan sameeyay khubaro kala duwan oo ka socda waddanka Britain baarista xogta macdanta oo dhowr nooc oo kala duwan ayaa soo bilaabatay sanadkii 1920 taasoo soo socotay ilaa iyo sanadkii la soo dhaafay ee 2018 madaxa shirkadda SKA ee xogtan soo markaas iibsatay oo sharaxaad ka bixiya baarista waxa uu sheegay in dhul badan oo Soomaaliya ka tirsan ay ku jiraan macdanta saliidda gaaska shidaal diamond iyo dahab iyo waxyaabo kale oo muhiim ah tani waa tallaabo cusub waxaanu arkaynaa in Soomaaliya ay ka jiraan fursado aad u fiican ee dhinacyada horumarinta kheyraadka macdanta ee dalka waxay keenaysaa arintan in dalka Soomaaliya uu helo maalgashigii loo baahnaa taasi oo fursad badan oo shaqo abuur u noqonaysa shacabka Soomaaliyeed waxaana shacabku ay noqonayaan kuwa ku noolaada dhinaca kale wasiirka batroolka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay in kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya alla siiyay ay laga maarmaan tahay in loo helo maalgashi ayna diyaar u yihiin in shacabka Soomaaliyeed looga faa'iideeyo waxaana uu amaanay macluumaadka dawladda federaalka lagu wareejiyay maanta waxaan uga mahadcelinaynaa shirkadda runtii dadaalka ee u gashay inay nagu wareejiso macluumaadkan qaaliga ah ee waddanka uu leeyahay waxaan soo dhaweynaynaa cid kastoo maalgashanaysa Soomaaliya dhinaca kheyraadkeeda ha noqoto macdan qaybaheeda kala duwan ha noqoto shidaal ha noqoto gaas intaba waxaan soo dhaweynaynaa cidii maalgashanaysa oo ay ugu horeyso shirkaddan hadda SMMG Soomaaliya ayaa waxay leedahay kheyraad dabiici oo alla ku manaystay ayada oo dalalka caalamka ay si weyn u quudareynayaan in kheyraadka ay xadaan dawladda Kenya ayaa kamid ah dalalka u baxsanaya in kheyraadka Soomaaliya ay gacanta ku dhigaan
waxaana ay hadda markaasi dooneysaa in badda soomaaliya iyo sidoo kale wadanka kenya xiriiriya ee qiraadka uu ka buuxo ay soomaaliya kala wareegto. laakiin arintan ayay soomaaliya dacwad uga furtay maxkamadda qaramada midoobay ee ICJ iyada oo la filayo in dacwadda labada dal u dhexeeya si dhaqsiyo ah ay maxkamaddu go-aan uga gaarto. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana diiday in ay aqbasho damaca kenya ee ah in wada hadal ay markaa laga yeesho arinta badda ama ugu yaraan labada dal ay ka wada faa'iidaystaan iyada oo badan laisku haysto uu alla ku manaystay kheyraad shidaal iyo saliida, taas oo markaasi ah mid si weyn dadka soomaaliyeed faa'iide uga ah. iminkana daawadayaal, madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu maanta khudbad dheer ka jeediyey kulankii xildhibaanada labada aqal ee sanadlaha ahaa. arrimaha uu kaga hadlay kulankaas waxaa ka mid ah dhinaca wadahadalada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale somalilan u dhexeeya. sidoo kale waxa uu xog badan ka bixiyey go-aanka mar walba ay somalilan qaadanayso haddii labada dhinac ay wada hadlaan. siyaasadda arrimaha dibadda mudanayaal, siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku dhisan tahay nabadgelyo, deris wanaag iyo iskaashi dhex mara dalalka gobolka iyo caalamka oo dhanba. si aynu u adkayno seeska iyo xaqiijinta siyaasaddeena dibadda waxaa buddhig u ah 3 tiir: ictiraaf raadin, kasbashada taageero dhaqaale oo caalami ah oo loo helo dib u dhiska dalka, iskaashi, isqadarin iyo nabad ku wada noolaanshaha dalalka deriska ah iyo guud ahaanba caalamka. waxaynu xidhiidho badan la samaynay dalalka caalamka, kuwaynala saaxiibka ah, kuwa ka soo horjeeda qadiyaddeenna iyo kuwa labadaa dhexdooda taagan. intaba waxaynu kulamo howleedyo muhiim ah la yeelanay aqoon-yahano, siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin caalami ah oo taageera somalilan, kuwaas oo keenay qoraallo muhiima iyo talooyin dhaxalgal ah. waxaynu taageero diblomaasiyaed ka helnay dalalka aynu saaxiibka nahay. waxay ku qanciyeen badiba dalalka caalamka ugu tukan weyn leh in somalilan taagan tahay wakhtigii bulshada caalamku dhex geli lahayd dalalka somalilan iyo soomaaliya. dowladda turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyadoo oo doonaysa inay keligeed ina dhexdhexaadiso innaga iyo soomaaliya. hase yeeshee annagoo dareensan 7 sano oo turkigu arrintaa ku jiray in aanay wax midho ah dhalin, waxaanu ku talinay in arrinta wada hadalku ay noqoto mid ay goobjoog ka ahaadaan ka wada noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wada hadalka u diyaarka ah ama daneeya. waxaa si toos ah noola soo xidhiidhay dowladda Sweden iyo dowladda Switzerland oo mid waliba gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya ay martigeliso. Somaliland way aqbashay labada martiqaadba. waxa muuqata in caalamka badankiisu garwaaqsaday in la joogo waqtigii la kala guri lahaa Somaliland iyo Soomaaliya. annagu xukuumad ahaan waxaanu qaadanay siyaasadda ah in mushkiladda loo galo si nabad ah oo lagu dhammeeyo wada hadal iyo nabadgelyo. mar walba waxaanu ka fogaanaynaa wixii keeni kara xasarad iyo colaado hor leh, maadaama Somaliland ay waayo arag u tahay riiqda colaadaha. siyaasadda nabadeed ee aynu qaadanay waxay keentay in wufuud caalami ah oo badan inoo yimaadaan oo arrintaa ku howlanay. sidoo kale waxaynu martiqaadiyo ka helay dowladaha aynu saaxiibka nahay, iyada oo la kaashanayo bulshada caalamka iyo saaxiibada Somaliland taageera. waxa suurto gashay in Somaliland hesho taageero dhaqaale oo gaaraysa $150 milyan 5 sano soo socda oo loogu talagalay horumarinta jidadka mashaariicda horumarka ee uu fuliyo sanduuqa horumarinta Somaliland ee 5 sano soo socda. waa sanduuq la SDF. waa xagaag daawadayaal, shabakada wararka ee warqaha TV ayaa daawanaysa barnaamijkan oo barnaamijka xulka wararka Soomaaliya. dhawaantan dad badan ayay ka yaabisay markii la arkay Soomaaliya oo ka aamustay xeer lagu cambaareynayay Yahuudda oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaybtiisa xuquuqul insaanka ay markaa u codeynayeen.
dhammaan inta ugu badan dalalka caalamka oo kuwa reer galbeedka ay ku jiraan ayaa si weyn u aqoonsaday xasuuqa yahuudda ay ka wado qudus iyo guud ahaanba dhulka falastiin in uu yahay mid gardarro ah. halka sidoo kale arrinta buuraha Golan Heights ee Mareykanku u aqoonsaday dhul yahuuddu leedahay ay si weyn wadamada caalamka ay u cambaarayeen. laakiin arrinta la yaabka noqotay waxay ahayd markii ay Soomaaliya arrinta ay ka aamustay. laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si degdeg ugu yeeratay safiirkeedii Geneva ayadoo ka doonaysa in ay sharaxaad ka bixiso sababtii go'aankaas oo aysan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxba kala socon ay u qaadatay. haddaba iyadoo arrintaas oo dhan ay jirto ayaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir waxa uu ka hadlay xaaladda ka dhalatay go'aanka ay dowladda Soomaaliya ay ugu aamustay qaraarka ku saabsan go'aanka oo madaxweyne Donald Trump ku aqoonsaday dhulka yahuudda xoog ku haysato ee buuraha Golan Heights la yiraahdo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal bartiisa Facebook uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in aysan safiiradu gaari karin go'aan dowladeed iyadoo aysan la tashan madaxda sarsare ee dalka. waxa uu soo qoray ma jiro safiir go'aan qadiyad caalami ah ka qaadan kara iyada iyo asaga oo aan la tashan madaxda sare ee dalka. waxaa la og yahay cidda go'aanka qaadatay iyo cidda ku cadaadisay intuba ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. siyaasigan ayaa ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka inuu qaato mas'uuliyadda go'aanka uu markaasi ka gaaray arrimaha qadiyadda muslimiinta. madaxweynuhu waa inuu si geesinimo leh mas'uuliyadda u qaataa oo uusan safiirka madax furasho ka dhigan wasaaraduna warqadda shacabka ku jahwareerin. safiiradu waa inay cadeyso in go'aanka uu ahaa amar dowladeed oo aan la jabi karaynin. ugu dambeyntii siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraalkiisa ku cadeeyay in hore go'aan sidaan oo kale uga aamusay safiirka dowladda Soomaaliya ee qaramada midoobe taas oo ku saabsanayd aqoonsiga ciidamada yahuudda ee Qudus. sidaan oo kale ayuu madaxweyne Farmaajo ku cadaadiyay safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobe u fadhiya in uu ka aamuso go'aanka lagu cambaareynayo in Qudus ay tahay caasimadda yahuudda haddii uu madaxweynuhu ku qanacsan yahay in ay aamusnaantu go'aanadan dani ku jirto ha yeeshe geesinimo uu mas'uuliyadda go'aanka ku qaato. laakiin ma dhici karto laga soo bilaabo dhiibistii qalbi dhagax in la yiraahdo madaxweynuhu ma ogeyn. laakiin hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah in Soomaaliya ay ka aamustay qaraarkii qaramada midoobe ay ku cambaareysay in caasimadda yahuudda loo aqoonsado magaalada Qudus ayaa waxa uu yahay mid ay su'aal ka taagan tahay maadaama qaraarkii maqaamka Qudus ee qaramada midoobe ay meel mareysay 21 December 2017 ay si buuxda u taageertay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd 128 dal oo taageeray qaraarkaas oo ay soo diyaariyeen Turkiga iyo Yemen, waxaana qaraarka diiday 9 wadan halka 35 kalena ay ka aamuseen sida ku cad diiwaanka qaramada midoobe. ka sokow cadeynta Soomaaliya ayaa si cad u sheegtay mowqifkeeda, waxaana go'aanka Trump uu Qudus uga aqoonsaday caasimadda Soomaaliya yahuudda ay ku qeexday mid halisa. qoraal waqtiga ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaan ku boorinaynaa dowladda Mareykanka inay si dhab ah dib uga fiirsato halista go'aankeeda uu ku yeelan karo mustaqbalka bariga dhexe iyo guud ahaanba dunida. waa xagaag daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeena soo gaarnay. iminkana waxaan idigu soo dhaweynayaa sheekadii ama warwaayadii kalamaan oo aad habeen walba barnaamijka ku daawataan. waddani maxay kula tahay xalka Soomaaliya? afar nusafadaan war adna midnimada Soomaaliya waa muqadas. adna maxay kula tahay? now war anagu horanu goone aqoonsi baan doonaynaa. adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye. war adna maxay kula tahay? dowlad dhexe oo sal adag. oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe. adna maxay kula tahay? boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an. war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa? war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane. oo duceeyay allay leedahay. si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan keenan. akhyaaray weydin salaam horta shalay inaan cabsaday waa wax iska cad weliba cabsidaas ciilaa ii dheeray sababtoo ah afar madoobaadayaa maalin kasta magaaladan Muqdisho gees walba ka qarxihaysa wax iska qabaayana male yaa dadkan damiirkoori intuu aaday dareen xaan ku iraahi abdille abniga waa la sugayaa ee adkayso Soomaali oo dhan ha adkaysato saraakiil cusub baa xalal loo magacaabay saldhigyada magaalada Muqdisho oo qatar ah oo Facebook lagu yaqaanay soo dhaweeya lana shaqeeyo
daree war saraakiisha la magacaabay Facebook dadka kala kiciyay waaye way u shidan tahay follows iyo comment iyo share iyo like waxa ay helaan ma malayn kartid ariya fallaaro badan minay haystaan xabad lagu dheefi ma faasna warkiisa baxooro mar hore gacanta ka dhacay war shalay Facebook ayadoo tacsiir kaliya ay ka socoto ayaa xalay taliyaasha saldhigyada caruurtii Facebook loo magacaabay ka bacdi hal mar tacsiir Facebook ka socoto hambali isku bedeshay war dadkii tacsiir ku mashquulay ayaa hambali lagu mashquulay marka siyaasadda soo hirgashay madaxweyne farmaajo tacsiidu shalay bartiisa Facebook soo dhigay dadkii commentiga ka baxshay hadaad akhrin lahayd maanta ma aadan hadasheen aryaadaha ilmaha lagu bedelay kuwii xagga ka yimid wala ka mid maahin war kulligood ana aqaano hal xabo Yurub ka yimid kuma jiro mid bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan miyaan lagu oran aryaa waxaan diidayo orodkaba waaye idhaganso baraar yaa weesku beedeshe kuwii wax bartay haybasheed baraar yaa weesku beedeshe kuwii wax bartay haybasheed war kuwii amniga soo bartay darbiyaday fadhiyaan waxna looma dirsado markay dheydkooda dhacay war wasiirkii hore amniga xildhibaan cabdirasaaq wuxuu yidhi qaraxyo kala beled ku jira sheekadu intaa kuma eka war nimiyaw nimantuu madiniili roogaan wal ma sheegayaan madiyo bahang ma indardaaraman war wasiirka amniga islow meeshii qarax ka dhaco waa imaan jiray shir jaraa'idna waa ku qaba jiray waa soo afjarnana waa oran jiray konton qofood meeshii ku dhimatana afara ku dhimatay oo oran jiray waana ka tacsiyay jiray waana cambaarayn jiray cadowga waayahan xataa tacsiil lagama hayee saa wax u jiraan amnigiiba faraha ka bahaye afkiiba juuqda gabay war wasiirka amnigu ayaantan ciidanka militariga ku mashquulsanaay mushaarkiiba la waayo afkiiba juuqda gabay war hadda ka hor cabdikariin guuleed markii la yidhi amniga waad ku fashilantay way iscasilay marka wasiirka amnigu ma cabdikariin guuleed uu ka waji adag yahay war cabdikariinba markuu galmudug wax ka qaban waayo way iska carsilaye duqa xaafi muxuu meesha u fadhiyaa ma ka waji adag yahay war xaaf wuxuu yidhi ciidanku furimihi ha ku laabtaano sababtoo ah madaxday u caroonayaan dalka ma lehe iyagaa iska leh askarta hal xaboo qurbajoogi kuma jira miyuu ka wadaa aryaadhaha guddoomiyihii hore gobolka banaadir yuusuf madaalaa warramay wuxuu yidhi taliyayaasha saldhigyada in la isku bedelo xabad soo siyaadi maysee dhibku kor ow ka jiraa eeyaan hoos lagu mashquulin dawladdana wuxuu yidhi qorshe abni inay la timaadaan laga rabaa ee ilma dhidhinna in la isku qasqaso wax xalhumahaas kama muuqdaanuu yidhi warka madaalo waxaan ku soo xusuusnay nimaa hadda ka hor tarmuus shaaha qaboojiye iyo koobo badan guriga u yiileen mugow koobka shaaha ku shubtee ow ka boomaagaba qaboobow ka naqdaa aasuu yidhaa iga soo beddel koobabka qandha shaah qabooba leh ha qaadaane aasaa dersin koobaba loo keenaa aasow shaahi ka shubtaa haddana weeska barafkii aasuu yidhaa iga beddela koobabkan mugaasaa layidhi koob shaah ma qaboojiya mana kululeeya dhibku wuxuu ka socdaa tarmuuska iska beddel war aniguna sheekada cabdulla waxaan ku xasuustay cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo ha ku dheelin heestu saas ma ahayna waxay ahayd cudurka kaa gala dhegaha haddii laga gubo cagaha dawada lama gaarayo war saas ma ahana heestaa ku cayaarin haddii dhegta ruux la jaro daloolkuu joogayaa jaleelada geedayaa midhaha laga jalaamsadaa warbadun deheno malaykoo deebelaw odowkoo dubudaw daladaw karsadaw dawli ambahanaaye waldaneeyaw dawli ambahanaaye waldaneeyaw dawli ambahanaaye waryaada laxdhashii ka saar waa waxaan laabta galahayne waa midiga lilaahiya inay guurtay libintii soomaalay lur baan ugu dhacay talaha loo laab tan haddana haysata tanu warnimayoanu ayaantan waa yaabay xildhibaanadii qaarkood waxay noqdeen afhayeennada xukuumadda khayre waxaana igula yaab badan xildhibaan jeesow iyo xildhibaan warfaa oo guddiga amniga iyo guddiga difaaca ku jira marka nimanku ma wasiirnimay rabaan
waa kuwa shaqadii wasiirada haye warwar ma haysida xildhibaan warfaa wasiirkii dastuurka oo dhintay kursigiisii baa bannaan oo uu rabaa jeesowna wasiirka warfaafinta in laga dhigu rabaa yaa daahir maxamuud geellana intaa la geeyha war daahir maxamuud geella ayaantan ciidamada militariga ku mashquulsan oo wasiirka gaashaandhigga laga dhigaya ha haddool waa loo rabaa buda kuriigi kaana oo aanka haaye annagaa wadan erajiriya rooga limeliyo dhug iyo dhaay dhuuntoo qoramay noqdeen anigu dhagafaari war wasiirka warfaafinta maanta oo saxaafadda iskugu wacay may eri xaa eriskeena ebadkiiba ma eriyune warwarkaan naga dhex gelinaya dhegaysta intaasaan ku sii koobaya ayaana sii badina aryaadhaha ma afdaboolan dahabay ku dhammaatay war wasiirka warfaafinta somalilan magaciisu waxaa la yidhaha guri barwaaqa laakiin beenay noqoto maanta maxkamadda la geeyey guri xabsina waa loo wadaa yaa guri barwaaqo ma guri xabsiye isu beddesha mugga war buugow qore ayaa lagu haystaa aniga i dhegaysta hal mar waxaan ku dardaarmayaa aniga doodaydu tahay wixii damqadow ka kaca hambadaan daafacnayn anna waxaan dhihi lahaa wiilkii isqaadaa mar buu qamandhacoodaaye khatar buu dareemaan isiri qaalman rogodkiiye cabdiqaniba khudbadii waa hakiyey khayre maalmahan war madaxweynihii maraykanka donald trump john makey oo sanad ka hor dhintay buu yidhi nin qaahin uga dara buu ahay kadibna gabadhii john makey baa u jawaabtay waxay tidhi odaga waali waa ku ogeyne mayd cunow buu ku darsaday eebagokaas waa waalan yahay minow mawdka aakhirana xama haayo war anigu waxaan dhihi lahaa dooxatada qarsoon iyo bahal adig ku dilay iyo aadun lama dugaashado dulucdana waxay tahay ninka cadow difaacee manaxaha u doodow dib baad uga shallaaye dubaaqaad taa geli waryaa waana daaliseene dadkaanu hadday damiir leeyihiin maalin kasta lama gumaadeena nadaaya waryaahe allahaydan badbaadiye riwaayadaas kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkii xulka wararka Soomaaliya barnaamijka lamid ah aynu ku kulmi doono daawadayaal waxaan idiga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu